madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu si toos ah u diiday awaamiirta iyo hadallada ka soo baxaya Xasan Sheikh ee ku aadan in mucaaradku joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan. Farmaajo laba habeen ka hor wuxuu diiday kulan uu dalbaday Xasan Sheikh. Waxa uu yiri madaxweynihii igu horeeyay maadaama aad tahay waxaan rabnaa inaan wada fariisano kana hadalno xaaladaha wadanka. Laakiin Farmaajo uu ku cudur daartay wuxuu yiri ayada oo dalka ay ka jiraan xaalado nololeed 6 biloodna ku harsan tahay dadkiina barakicin aad ku wado way adag tahay inaan ku hor fariiso raali lahu baa lagu yiri Xasan sida xoguhu ay xaqiijinayaan. Haddaba Farmaajo mar kale wuxuu diiday amar ka soo baxay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud isagoo uu yiri ma dhaqan gelinayno amarkaas. Muxuu yahay amarka Xasan Sheikh ee uu Farmaajo diiday? Sidoo kale waxaan ku hayaa culimada Soomaaliyeed shirki ay ku yeesheen Muqdisho waxa ka soo baxay wax aan la filayn oo la yaab leh. Madaxweynuhu xalay wuxuu u sameeyay casuumaad culimadii ka qayb galaysa shirkaas. Sheikh Soomo ayaa si baan u weeraray culimada wuxuu ku tilmaamay kuwa raba tikidho iyo shaaxshaaxa dawladdu ay ka bixinayso. Haddaba culimada dhexdeedii ayaaba isku bilowday xaalad qir iyo qir ayaa ka taagan lafta gareen war culus ayuu soo saaray Trump mar kale Soomaalida oo ku dhiiqaystay qodobadaas oo dhan aan eegayna marka hore soo dhawow muuqaalka like saar channelka subscribe soo dhawaad mahadsan tahay. madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo dhowr iyo 10 maalmood ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa wada kulamo iyo dadaalo uu rabo in mar kale dib loogu doorto. kulamada wuxuu la qaadanayaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida macallimiinta, ardayda, culimaa diinka, saraakiisha ciidanka, wasiirada, xildhibaanada, saxafiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaantood, dhaqaatiirta waxgaradka, qof walba odayaasha dhaqanka. wuxuu kulamadan uga gol leeyahay Farmaajo sida uu isagu sheegay u koorgelida xaaladda wadanka. Horta inuu ogaado xaaladda dhabta ah xilligan Soomaaliya ka jirta. 10kii maalin ee ugu horeeyay waxaan ogaaday buu yiri in magaalada xabad rooti la isku dilay oo gaajo baan ay ka jirto. Qofkii hal waqti cunaana adag tahay inuu waqti labaad helo haddii aadan ahayn dadka dawladda markaasi u shaqeeya ama dhaqaalaha badan qaata. Farmaajo intaas kadib 15 maalin markuu joogana wuxuu soo saaray warqad kale oo uu ku leeyahay 5 milyan oo Soomaali ah ayaa wajahaysa macluul iyo gaajo daran oo nolol liidad ku jira. Soomaaliya markii aan anigu xukuumay wuxuu yiri waxay kala lahayd dabaqada sare midda dhexe iyo dabaqad hoose. dabaqada sare waxay ahaayeen mid ay ku nool yihiin madaxda dawladda, carruurta ay dhaleen, ganacsatada iyo dadka ladan. dabaqada dhexena waa dadka iska caadiga ah ee shaqaalaha dawladda, askarta iyo dadka kale ee markaasi kambaniyada gaarka loo leeyahay ka shaqeeya oo dhaqaalahooda u dhaxeeyo 500 ilaa 300 dollar iska dabaqada dhexe. dabaqada ugu hooseysa waxay ahayd dadka maalinkii biisha 2 ilaa 3 dollar oo si maalinle ah u heli karay. labadaas dollar ama saddexdaas dollar waxay kaafisay noloshooda oo dabaqada hoose ay ku noolaayeen. hal waqti ay dab ka shitaan waqtigaas ayaa la isgaarsiiyaa oo tusaale subaxii 8 barqanimo oo kale reerka hadii dabka loo shido wixii hara labada lagu qadeeyo caawa casha ama jirto way. noloshii sidaas ahayd ma jirto yiri dadku hadda waa wada dabaqad hoose. kuwa ladan oo madaxda carruurtooda ah iyo ganacsatada oo dhaqaale haysta iyo kuwa nolol la'aan oo gaajo beerka dhulku haya labada ayaa loo qaybsamay leeyahay Farmaajo. marka Xasan kulinkiisu wuxuu ku diiday sida la sheegayo iyada oo dalka gaajadaas ay ka jirto dawladuna dadkii sii barakicinayso. wuxuu yiri adiga dadkii sii barakicinayo oo qaxooti hor la abuurayo qof guri deganaabaad ka kicisay deegaan ma haysto xagee uu aadaya intii uu ku noolaa lahaa inuu kira ku bixiya ama nolol kale ku raadsaa. dawladdu markii iyadoo abuuraysa barakacayaal hor leh sidee baan ku hor fariistaa buu yiri waa diiday. sidoo kale 5 milyan oo Soomaaliya macluul wajahaya waxa kale oo ku diiday kulanka Xasan Farmaajo sida la xaqiijiyay ama xogo rasmi ah oo aan helnay inoo sheegeen in dalkii xilligan uu ku jiro xaalad adag kala guur ma dhahayo yiri Farmaajo waxaan leeyahay buu yiri samata bixin dalku wuxuu u baahan yahay samata bixin kala guur ma dhahayno waa kala guur ilaahay nooma celsho ayuu adeegsaday kelmadaas oo hore loo kala guuray haddii Soomaaliya mar kale kala guur la yiraahdana dhibaato hor laha ka dhalanayso yiri Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. marka wuxuu sheegay doorashadii heshiis lagu ma ah 6 biloodana ku hartay wax aan ka wada hadalna hadda ma jiraan ayuu leeyahay. Xasan wuxuu rabaa inuu la hadlo Farmaajo oo uu arko ninka kaliya ee loolanka adag uu kala kulmi karo. madaxda mucaaradka ah qaarkood waxa la siiyay lacago si ay markaasi u ogolaadaan muddo kororsi ay rabto dawladdu inay samayso. Xasan Sheikh iyo xukuumaddiisu waxay iska dhaadhiciyaan inay samaysan karaan muddo kororsi 2 ilaa 3 sano ah maamul goboleedana ay ugu dari karaan sidii hadda ay ugu dareen. hadda maamul goboleedyada waqtigooda dhamaad waxa kamid ah Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed waqti sax ah ma haystaan oo laba sano qaarkood 3 sano lafta gareen oo kale hadda 7 sano xiriir u jooga oo 2018 la doortay December ilaa yoomina hada isaga madaxweynaha waa December teedan ay ku ag tahay oo hadda November gabagabadeeda aan marayno.
toddoba sano ayaa u buuxsantay 3 sano oo xilhayn aan sharci ahayn buu ku joogaa lafta gareen madaxdaas oo kale xas sheekha ugu daraya sababtuna isagaa muddo kororsi rabo wuxuu rabaa isaguna markiis in loo ogolaa farmaajo markii arrinkaa uu diidan yahay wixii 4 sano ka hor anigu aad ila diiday ee qarankii aad ku burburi rabtay oo aad beebayaal soo dhigatay madaxtooyada irideeda oo ciidankii qaranka la iska hor keenay oo qabiil loo qaybiyo sidaan anigu maanta kaaga yeelaya ma kula fariisanayo yiri farmaajo dadka aragtaan way ku kala duwan yihiin marka qaar waxay leeyihiin farmaajo uu ku saxan yahay inuu diido xasan mindhaamaba jirto wax kale uu ka hor fariisto iyo xukun hadda u haray oo ay ka wada hadlaan qaarna waxay leeyihiin farmaajo uu qaldan yahay ha qaabilo madaxweynaha waa madaxweynihiisii Soomaalida madaxweynaha loo yahay kamid yahay farmaajo shalay asaga madaxweynaha laakiin maanta isaga madaxweyne loo yahay marka waa inuu ogolaado in loo dawladeeyo oo madaxweynihiisu uu ixtiraama oo uu u dhaga nuglaada oo uu hor fariista oo la hadla oo xorro oo ka dhageystaa bal adigu aragtidaadan ku deynaya qof xor ah tahay farmaajo ma ku saxay inuu diido xasan sheekh maxamuud aragtidiis xasan se ma ku qasbi karaa farmaajo inay is arkaan oo kulan qasaba maadaama hadda awoodii dawladda iyo astaantii qaranka uu xasan sheekh yahay aragtidaadan ku deynaya adigoo aan qofna aflagaadeyn fakarkaaga adiga ayaa xor u ah qaybta hoose noogu reeb muuqaalka like-ta ka ilaawin si dad badan oo Soomaaliyeed u gaaro channel-kana subscribe soo dheh madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa hadal kulul jeediyay maalinnimadii shalay lafta gareen ayaa si kulul uga hadlay dhibaatooyin ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxa uu si cad u sheegay in aan marnaba la aqbali karin falalka lagu horbeegsanayo dadka safarka ah ee marawadooyinka koonfur galbeed kaas uu ku tilmaamay mid sii kordhayay ama mid sii kordhiyo culaysyada jira waxa uu sheegay in dalka haatan uu wajahayo xaalad adag isla markaana ay jawiga xilligan uu yahay mid aad u culus wuxuu intaas ku sii daray nasiib wanaag waxa uu yiri wax la aqbali kara maaha in qof $2 loo dilo shalay ay dhacday uu yiri qof in deegaanada koonfur galbeed loogu dilay $2 oo kaliya nasiib wanaag waa la soo qabtay buu yiri ninkii dilka geystay maxkamadda wuxuu ka helay ayuuna leeyahay waa la soo saari doonaa sidoo kale wuxuu bulshada koonfur galbeed ugu baaqay inay ka shaqeeyaan cadaaladda iyo nabadda si loo yareeyo khilaaf ka taagan loona helo xal waara isaga intaas ku hadlaya madaxweynaha koonfur galbeed eedaymo culculus dul hoganaya xafiiskiisa maamul goboleedkiisa sida hadda diinsoor oo maamul koonfur galbeed ka tirsan waajid xudur walaweyn afgooy yaqbari weyne iyo deegaano kale colaada ka alos waxa lagu eedeynaya ragga uu isagu shaqada u dhiibtay qaarkood waxa leeyahay isaga horinayo oo raali ka kuwa kalena waxa leeyahay rag isaga uu xilal u dhiibtay oo taliyaha saldhigga booliiska walaweyn kamid yahay oo saraakiil ciidanka xoog ku jiraan ayaa qabyaaladda iyo qabiilkaba ka shaqeeyo dadka isku diray waxaan rabaa inaan kula wadaago muuqaalka Cabdicasiis lafta gareen oo arrimahaas oo dhan kaga hadlayo laakiin marka hore muuqaalka like saar channel-kana subscribe soo dheh ila daawo lafta gareen dadka in loogu daro colaad in loogu daro fidno in loogu daro qax in loogu daro jidgooyo oo jidka loo istaago wax la qaadan kara ma shalay nin musaafir ah oo jidka saaran oo baabuurkiisa wato $2 darteed in loo dilay dhacdada ugu xumaydoon maqlay shalay waa la soo wadaa ninkii dilay waa la haayaa $2 u dilay cadaaladda la keenayaa maxkamad baa la saarayaa wuxuu ilaahay ka siiyay leeyahay dadka reer koonfur galbeed xilli adag oo duruufo adag lagu jiro anigu ma dhahayo kala guur baa lagu jira kala guur ma ogtahay waa wax la kala tagay waay oo isu guur baa lagu jira waa la isu soo guuraya marka kala guur hadaa maqashid waa la kala tagay waa la kala guuray ma ogtahay wax isku soo noqonay male xilligan marka kala guur ma isu soo guur waay waa xilli la isu soo guuray oo la isku soo dhawaanayo oo xilli fiican marka waxaan rabnaa xilligan isu soo guurka iyo siyaasadahan socdo inaan si midnimo ah oo walaaltinimo ah oo horumar leh oo deganaansho leh oo xasilooni leh oo amni leh oo siyaasad leh oo iskaashi ah oo wada tashi leh inaan uga gudubno meeshii aan rabnay oo hiigsiga annaga ahaa oo targetka annaga ahaana aan geeyno meeshii aan rabnay oo shacabka annaga iyo deegaanka annaga iyo dadka annaga ay ku badbaadi lahaayeen oo maslaxadooda ku jirto inaan u sahmino oo dejino annagu waxaan nahay dadkii u adeegayay shacabka reer koonfur galbeed waxaan ka siinahay oon qayb ka nahay dowladda federaalka Soomaaliya
annaga oo dowladda federaalka Soomaaliya laf dhabar u ah qaybna ka ah dowladaha kamid ah dowladaha federaalkana xubin ka ah waxaan rabnaa inaan u istaagno dowladnimada waa shacabka waa dhulka waa xuduudka intaba annagoo ilaalinayna inaan sahan u noqono una sahmino meel dadkaanaga iyo deegaankaanagaba iyo dadka iyo dhulka aan mas-uulka ka nahay ay ammaan iyo badbaado iyo nolol iyo amni ay ku helayaan inaan u sahmino inta mas-uuliyaddaas ay saaran tahay oo la sugaayo ilaahay hortiis lagula xisaabtamayana waa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo dowladda koonfur galbeed intaasaa laga rabaa deegaanada ay ka socdaan dhacdooyinka yaryarka ah oo ama qabaa'ilka ah ama qaabdarrada kaloo amni ah ama shabaab ah si wada jir ah oo midnimo ah in looga hortago loona xalliyo xilligan adag oo laga baqaayo anigu ma rabo inaan hadda aan qayladaan abaar baa jirteena soo gaaraya aan yidhaahdo ilaahay baa na soo gaaraya waxa aan qabnay ilaahay baa u sheegaynaa laakiin xilliga adag ah oo roobkii jiilaalkii uu soo daahay haddana dadka in loogu daro colaad in loogu daro fidno in loogu daro qax in loogu daro jidgooyo oo jidka loo istaago wax la qaadan kara ma waxaa nasiib darro ah oo wixii aan maqalnay ugu dambaysay shalay nin masaafur ah oo jidka saaran oo baabuurkiisa wato $2 darteed in loo dilay dhacdadii ugu xumaydoon maqlay shalay waa la soo wadaa ninkii dilay waa la haayaa $2 u dilay cadaaladdaa la keenayaa maxkamad baa la saarayaa wuxuu ilaahay ka siiyey leeyahay waxaana anfacaayo oo intaan aan ku soo gaarnayna cadaaladdaas waa haddaanan helin cadaalad nin walbaba wixii xaqiisa ah cadaalad uu ku helayo aan helin deganaanshaha iyo dowladnimada yaa qatar gelayso